duhur wanaagsan saaxiibayaal saakay reer xaaji saleebaan iyo al-shabaab deegaanka qaayib waa isku wareysteen aan ku dhaho waa isku ware si fiican oo sharaf leh shabaabku waxay leeyihiin 43 nin baa saleebaan ka dilnay 5 gaari baan ka qaniimeysanay qaayib iyo saldhigaan weerarana gacantaan ku haynaa wayna kaa saleebaanna waxay leeyihiin shabaab saakay qorshooda waan ka war helnay darbaxshadan ku dhufanay iyo baktigan ka jiidnay ilaa hadda waxaan ku baaxsanaynaa qaayib iska daay banaanka qaayib baan ku baaxsanaynaa marka laga soo tago labada warbixin oo aan qodobka koowaad ku falanqeyn doonana anigu mid baan leeyahay quburo dhanka militariga oo beesha xawaadle ayaa saleebaan u baahan tihiin maxaan ku yiri hayga degdegine qodobka koowaad ee barnaamijka ayaan kuugu sheegayaa hadday gartahay hadday gardaro taaba war soomaaliyey dunidii baa yaaban dunidii afrikaantii iyo carabtii iyo caddaankii war ma daawateen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u qudbadeynaya ciidan macawiisley ah weliba masaajidka cali guduud iyo nuur dugle kelimaa wasiil aad oo baxda aad oo mataqaanaa maxaas aad oo balweyne tag ciidan military macawiisley weliba fiiri qasnadii rasaasta war horta idala daabo bal meeshaan xagga bug waa aragnay qof caadi ah waxaas uma bareeri karin adika u bareerteen sharafteedii iyo karaamadeedii iyo maanta waa leedihiin ciidamada loo qudbeynayo xasan sheekh uu u qudbeynayo dunida waxa ka yaabiyey wax kale maahane war muuqaalkan sheergareeya war adduunkii baa yaaban ciidamada rasaasta qoryaha fiiri qasnada maaragta rasaasta lagama bixin waa ugu jirtaa kow mid waalana macawiisley ku jiri karo mid cadiifad qaadaa ku jiri karo mid walaalkiis la soo dilo iska xanuunsanaa jiri karo ama walaalkiis la bireeyay shabaabka bireeyeen militariga mid waalana isna ku jiri kara kulli ciidan Soomaaliyeed iyo Maleeshiya Soomaaliyeed ma idin kaga sheekeynayo xasan sheekh marka jaakadii rasaasta cilinaysa ma wato kow buruuf kuma tagin dhulkaas waa war caadi iskaga socdaay anu mid baa leeyahay qodobka labaad aan ku xusi doonaay xasan inuu geeriyoodo oo dalkan uu u geeriyoodo diyaar u yahay ama inay Soomaaliya dhaqaaqdo isagoo risk naftiisa u qaato ogaada qaybta labaad ee barnaamijka aynu ku qaada dhigaynaa iyo reer tolkay farmaajo cidiisana cadadka gooye shabaab waxay leeyihiinba shabaab iyo hawiye wallahi shabaab aan qaadanayna ay dheen waa reerkii familkii uu ka dhashay farmaajo waayahay qaybta labaad wax badan ku jarjareenaay aan u soo laabto saakay qayb war baa ka dhacay nimankii shabaab ahaa duulaan 3 geesood ah ay soo qaadeen inta aysan duulaanka bilaaban salaadii subax markii laga baxay ilaa intii dukatay oo muslimna ka aqbalay 3 gaari oo qarxi laga soo buuxiyay bay saldhig wiilashii saleebaan ee naftoodu u hurayay saleebaan iyo Soomaaliba ay ku dhufteen 3 gaari waa hal second juk waa dareemi kartaa 3 qarax oo waaweyn oo saldhig lagu dhuftay kadibna 3 jihay ka soo galeen halkaasaa leysku farasaaray waa leysku jilba murxay saleebaan ma quusan qarax ma qoro yiri mid labaad ma qoro mid saddexaad ma qoro dagaal faraha lagu gubta halkaas ka dhacay isgaarsiinta qaayib waa go'antoo cid hadda warbixin sax ka keeni karta ma jirto rasaastu way socotaa ilaa haatan aan kula hadlayo waayahay dhanka shabaab barahooda bulshada warbixinay la soo degdegeen bayaan bay soo saareen qoraalay kaga hadleen dagaalka qaayib oo ka duwan waliba dagaaladii hore waxay leeyihiin qaayib gacantaan ku haynaa 5 gaari oo ciidanka dawlad aniga ciidan dawlad baa aaminsan Saleebaan aan aaminsanahay ciidanka dawladda lahaayeen gacantaan ku haynaa 43 wiil waa dilnay shabaab hadii ku dhaan 43 dilnay markaas 13 kama badna geerid aniga aaminsan hawa 43 mar walbo xisaabta 3 jibaarka way yaqaanaan aljabradii ku dheerayaan nimankan ku dhufashada waayahay Saleebaan dhankoodu waa wareystay waxay leeyihiin shabaabka qaayib gacanta ku haynaa iyo saldhigiiba dhowr sawir ee telegramka soo dhigeen dhufaysyadii eego calankoodii madowna ma dagaal horaa ma kan hadda ma xaqiijin karo shacabkii kulama degdegi karo laakiin dhanka Saleebaanka wiilashii geesiyaasha aan la xiriir waxay leeyihiin raggan way jirtaa in 3 gaari ay ku soo weerareen qaraxyo ah dhulkeenna waa iska difaacnay 10 baan u dhignay baktigoodan jiidnay banaanka qaayib baan ku sii raacdeysanaynaa ilaa Saleebaan wixii wara kulay war qarsoomi maayay barnaamijyadeena dambe ayaan warkoo fadhiya oo sugan shacabkeena kula wadaagi doona hadduu eebba saamaxo waayahay hadal kaftaran sii tuuray quburo xawaadla ah ayaa looga baahan yahay dhulka Saleebaan maxaan ku iri marka Saleebaanow
غايب ما دفيس أيضا لسكسو ويرنا أك دفاع ولا جا إلى الشمية متقنا عدد رجال اليمية معنا رادار الدفاع إركب وحى كحرتين غايب وأكيد دفاع إنسان شبابك وحي أباهين مدح إلا جراعه إلا قدولو إلا ويرو أنت سيايا كان مرك حوالنا كجبرنا حوالنا اللي وصل دولايو وياهن معركن قبيلة لا ما حكروا حوالا أساء أتاق عيارو فرمسون كان شباب كسليمان كالدفاع عيار إنسان كما في عنا الشباب وحكوا في عيا قرعي لسان أسوي الرجلين كبود يدلو سمرب هذا مركز ما إيجا الجدول دب معركتين مايا أنت أصلا هرت وعد صديق قبرة باش سليمان باش حوالا إلا وجي لوكاس غايب سين مرد مسود دولون أو غايب أو نقطة مال أيجا من لوجد دولة ده فهمتين ويا هاي ورحصل الشيخ محمود أنا وسيل بالله يابنا أو بعد الله يابنا أو واحد الله يابنا محاسب الله يابنا أو بلغير الله يابنا أو نور دكتور الله يابنا مساجد كعلى الجدود إلهي بقى إنه كل درشي كفتن وقت ما هي جاكدي قرحية ذا كورتجي صدق قرح دعو أما هذه رصاص الوردو ما وتحصل الشيخ محمود فتشاري وتاه إيه وعرف الدنيا بقولال ويل وح أيين بلغرني نب قارع عيدم كوسو بيرن لما يكان مع ويسلا شل قرية ساقات أو شباب مسك حوج جري قرية شل إسك ساقات أو أكيد سوته حاسس شقوق بيناي كور بل بابا ياشا بل إلى داود إلهي ذي كل درشي رزقي ومدعوين عسى قادراي ور شرقرية qof caadi ah waxaas uma bareeri karin adika u bareerteen sharafteedii iyo karaamadeedii iyo maanta waxa intaas waa leedihiin qasnadaha wiilashaas uusan garanaynin mid maxnuunsan yahay mid muwaalan yahay askartu ma fayow yihiin male riski la qaatay qasnadoodu waa u xiran yihiin lagama bixin aagag iyo dhufeys soo tagay madaxweynaha saas u sharfan ee u qiimaha badan ee taariikhda meel dhufeys iyo shabaab meel laga ciiray taariikhda madaxweynaha Soomaaliya oo tagay ma jirto waxaad soo xasuusanaysaa farmaajo oo 5 sano aan hal biskoolad ku ridan shabaab qubarada dhanka amniga ee gobolka iyo Soomaalida iyo caalamkana waxay leeyihiinba taa kuleen buu hoos ku siin jiray inuu la dagaal iska badaayo cali cusub la xataa daawateen farmaajo markaa nin mareexaan uu tagay madaxtooyada 45 iskaana la marina nuur duglim iskaan baa yaala maxaas miskaana yaala xawaado warwarsangeli abgaalo masaajidka cali guduud iskaan ma dhigteen maya warwisil ma waxa la dhigay miskaan maya xasan waa ku dhiiray maxaa meesha kaaga bax marka inaan dhintaan diyaar u xasan sheekh taagaya warada inta isla qabtaan muuqaalka like saara da inta isla qabtaan ama inay Soomaaliya noolaato bas xasan Soomaaliya darteed nin nolosha u dhaafay waayahay haddaad wax fahmaysid wuxuu ka sheekeynaya xalana Allah u naxariistay iyo sidoo calanka soo difaaca ugu dhintay hadalkaas nin weyn waay maxaa kaaga baxay hadda inta ku dhintan dalkayga u dhinto waay هذا فهمتين ويا حلنا ماشي مقولين ريسك وقادنا يكي حلنا قاتا سيمة وين أساسه فهمتين مرك أنت أصلا قصة تجني منك دارود أنا دارود طن ما هستو أنت فرماجة تغيير جرتي أمد مواد النمي ودنيتك وخلد جرتي ما أنت وحي ما أنت اللي سألي واي أو قول درادي شريت طبعا كمية لقصة قد بلسك علي واي بعد وحي تاجين وركان ميل جارسي والله تويتر سبيس كلابها وصابره وحي لا فديان هويه يا الشباب انيغو هويه الشباب انت تاغرسن هويو ويك اب نيمانكي سي بي بي اها اي خبريه عداس iyo odayaashii cidaas ee xataa wax bartay ee xataa caasha ahmed cabdalle ugu horeyso oo mas'uuliyiin leh hawiye iyo shabaab maxaa ku dhahay hawiye shabaab taageersan waxa weeye damarjadii tuuga way wax ka jira male muxuu hawiye kursiga u fadhiyaa waaye xasan haddii waxyi ku soo degacaa waxyi inkastoo nabi maxamed cali sallam kadib uu san nabi dam iimaani waxyi lagu soo dejiyo haddii waxyi ku soo dega xataa cidaas waxay ku yaqaanaan tuug ma laga yaabaa inay jiraan dad anaga naga dhasho yar oo farmaajo wali jacel ma jiraan maya odagii farmaajo ahaana aamusnaanta hiile ka walax tahay hal maalin asoo shabaab ha lagu duulo dhaha maaragteen tuumish warmo شعب كمان كوحنا وأنا كوسو قبل صومالي سدح واي شباب حناقسن شعب فرح سنو مدحوينو ريسك وقادنا يا شباب كالكال شوار ما كعونا يا تركي جواي